بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم waxaan rabaa inaan wax yar insha Allah aan taabano waxyaalo ku saabsan technology-yada cusub ee caalamka maanta caalamka oo dhan runtii saameynta weyn ku yeelatay oo ah ama uu hogaaminayo internetku dalka Soomaaliya si guud markaad eegto waxaa aynu qayb ka nahay caalamkaas teknolojiyadu ay saameysay oo sida weyn runtii u saameysay mataqaanaa wuu kala awood badan yahay teknolojiyadii iyo habkii loo isticmaalayay xaggii dhaqaalaha xaggii aqoonta xaggii mataqaanaa xiriirka xaggii ka faa'iidaysiga marka inagu Soomaali ahaan markaan eegno waxaad moodaa inaanu nahay wadamada runtii ku dambeeya xagga fahanka teknolojiyada ee dhinaca horumarka ama ka faa'iidaysigeeda iyo u diyaar garowga sidii looga faa'iidaysan lahaa muddo hadda dalka aan eegayay xaaladaha teknolojiyada iyo si dadku u fahansan yihiin waxaa ii soo baxday in fahanka dadka ee teknolojiyadu runtii aad u yaryahay weliba marka la eego dhinaca qolyaha mas-uulka ah dowladda iyo ganacsatada iyo qolyaha kale oo dee bulshada hogaamiya sida mataqaanaa waxbarashada caafimaadka ganacsatada guud dhalinyarada isticmaal teknolojiyada in la isticmaalo oo lala qabsado oo sida hadda loo isticmaalo waa wax caadiya oo qof walba uu fahmi karo for example Facebook WhatsApp Google internetka si guud in loo isticmaalo qofku uu markaa sistemada jira uu adeegsado sida caalamka oo kale waa wax la fahmi karo caadiya oo la garan karo dadka Soomaaliduna aad bay u isticmaalaan laakiin waxa weeye meesha la rabo ama fahanka aan anu ka hadlay waxa weeye fahanka dhinaca wax ku duldhiska ama ka faa'iidaysiga internetka qaybta adiga kaaga aadan ase wadan ahaan ummad ahaan oo hadday noqoto xagga waxbarashada iyo xagga ganacsiga xagga dowladda intaba tusaale ahaan tusaalaha ugu sahlan waxa weeye haddii aad eegto dhinaca ganacsiga Soomaalida intee shirkadooda ayaa website leh waad garan kartaa ama haddii xataa website leeyahay website-koodu uu yahay website aad wax ka iibsan karto ama aad shirkadda kala xiriiri karto ama aad ase macmiil ahaan aad wax ka weydiin karto adoo webka isticmaalaya waxa laga yaabaa inay yar yihiin waadan garan karin hore ka garan karin ama hore kala soo boodi karin shirkadaas website beleeda website-keeda waa isticmaalay waxaasaan ka qabsaday saasaan ugu adeegtay waa okay maaragtay waa fiican tahay wax bilow waa jiraan oo zero ma dhahayno laakiin markaad eegto hadda xaaladaha hadda lagu jiro COVID-19 iyo cudurkan coronavirus wax badan waxaa laga dhawaajiyey waynu arkaynaa in caalamku siday ugu kala xoog badan yihiin teknolojiyada oo ay u hirgeliyeen adeegsiga teknolojiyada ee dhinac walba in dadkii iyagoo guryahooda jooga ay waxyaalo badan qabsanayaan oo adeeganayaan weliba sidii hore si ka daran teknolojiyada loo isticmaalayo hadday noqon lahayd shirarkii la wada gelayay video conferencing waxaa loo yaqaan oo platformyo badan ama meelo badan laga isticmaalayo Zoom baa hadda Soomaalidu inta badan ay garanaysaa laakiin waxaa jira Skype baa jira Google baa leh mid leh oo lagu wada xiriiro Microsoft baa leh Microsoft Teams wax la yiraahdo shirkado kale oo badan baa jira oo iyaguna saas oo kale bixiya laakiin meesha lagu kala tegayo
waxa weeye adigu adoo guriga jooga daatadii ama informationkii ama macluumaadkii shirkadda ma heli kartaa ma gaari kartaa haddaadan hore ugu diyaar garoobin oo horey aadan u samaysan systemyo u fududaynaya shaqaalaha ama dadka madaxda inay daatadii ama informationka ay u baahanayaan helaan iyagoo meel kale jooga waadan online ama hab kaleeto oo networker ah aan daatadaadii aysan u urursanayn ama macluumaadkii shirkadda ama iskuulka ama cusbitaalka ama xafiis dowladeed hadduu yahay mataqaana adeegii aad u bixinayso bulshada siinayso intaba haddaadan hore u diyaarsan maanta oo COVID-19 iyo la yiri mataqaanaa nin walba gurigaaga joog tusaale ahaan way adag tahay si adeeg ku bixiso way adag tahay si aad xaaladda uga gudubto waxay ku khasban tahay sidaad hore u shaqaysan jirtay inaad u shaqaysto qaarkii tagto xafiiskii tagto shaqadii halkaa ka qabato innaga ilaahay fadligiisa waxa weeye dee waa samayn karnaayo Soomaaliya inkastuu baarku soo gaaray haddana sida u saameeyay wadamada kale uma saameyn sida loo xoog gale wadamadu u hirgeliyeen waxaan lockdown ka dhacaan ama guri joogida iyo ka bixitaankana looma hirgelin ugu yaraan bandowyo iyo waxyaalo yaryar iyo waa iska jireen laakiin still dadku waa shaqaysan karaan oo goobahoodii meelaha bay tegi karaan waxbarashada haddaad eegto waxaa la yidhi online ha lagu bixiyo waa fiican tahay waxbaa la taataabto laakiin hal iskuul tusaale ahaan Puntland oo kale hal iskuul oo website leh oo websitekiisa asaga uu leeyahay daatadii informationkii ardadu ay ka helaan waa ku yiri jaamacadaha qaarkood sistemo ay ka soo tabarcaareysteen ama hay'ado kale oo non-governmental ay siiyeen tabaruceen ayaa laga yaabaa qaarkood inay adeegsadaan oo casharadii ku bixiyaan iyo sidaan sheegnay companygan Zoom iyagana inay isticmaalaan laakiin hoos markaad u eegto waxba ma jiraan xagga technology-da sababtoo iskuulaadkeenna laguma dhigo computerkii laguma dhigo sidii la rabay looguma dhigo computer lab ma leh ardadii waxaa laga yaabaa secondary markuu ka baxo inuusan aqoon computerkiisa loo daaro si loo furato jaamacadda markuu tago waxaa weli dhici karta inuusan aqoon computerkiisa loo daaro marka heerkaas adoo ah markii si guud loo fiiriyo technology-yadii saa uga faa'iidaysan kartaa waa adag tahay ama aadu wuxuu ku dul dhisi karto way jiraan dad bartay programming iyo coding iyo computer science wax ka bartay wax soo sameeya laakiin xawliga iyo baahida iyo waxa la yiraahdo priority-ga ay leedahay lama siin dawladuna ma siin haddii dawlad maamul goboleed tahay iyo mid federaal shacabka uma siin tusaale intee guri ayaa internet leh internet ku jira aan kala saarno internetka mobilka laga isticmaalo oo inta badan u badan Facebook iyo YouTube iyo maxaa la yiri iyo kaas waa mobilka laga isticmaalo mobile internet weey waa baab kale waa isgaarsiin inta badan laakiin shaqo saa u qabatid waa inaad haysataa internet ku xiran internet line connection caadi ah oo guriga kugu jira xafiiska kugu jira si markaas aad computerna aad ku isticmaasho si aad markaa u qabatid wuxuu qortid wuxuu soo saartid daatadii informationkii u ururisid u keydiso inta guriga internet ku jiro Soomaaliya caalamka haddaad baartid internet penetrationka Soomaaliya internet penetration ama internetka penetration marka caalamka laga hadlayo waxa la eegaa line-ka guriga ku xiran Soomaaliya badanaa waxa lagu qiyaasaa 3% yani guryaha Soomaaliya ku yaala xafiis wuxuu dhan isu geey 3%
keliya haddaan bunbuunin boqolkiiba 5 dheh boqolkiiba 5 internet connection oo ah internetka lagu shaqaysto oo wax lagu qaban karo muxuu soo kordhin karaa ama uu ka horumarin karaa xaggii isticmaalka ay adeegsiga teknolojiyadda waa yartahay maantaan hore u sheegay iri kala saar internetkii iyo waxa ku dhisan oo dad ku dhistay sida google-kii facebook-kii whatsapp-kii alibaba youtube shirkadaha waaweyn ee teknolojiyadda inaad isticmaasho meel walba caalamka laga isticmaalo iyo inaad adigu la timaado initiative iyo inaad wax ku dhisto teknolojiyadda waa kala labay kaliya tan ka hadlay marka anigu aan arkay inaysan Soomaalidu aysan aad ugu horumarsanayn waa tan ah in internetkii oo yaala computerkii oo la haysto aan si looga faa'iideysan cidihii ay khuseysay dhinaca waxbarashada dhinaca ganacsiga dhinaca dawladda intuba aysan siin muhiimad ay lahayd runaana markaad eegto waa arrin xataa khuseysa hab dhaqan dhaqaalaha dalka habka loo nool yahayba caalamka mar hadduu isku xiran yahay adigu bannaanka miyaad ka ahaan kartaa internetkii iyo teknolojiyadda ku dhisnayd wuxuu gaaray heer wax walba oo nolosha ka mid ay saameeyaan dhinac kasta haddaad ka eegto safarkii haddaad ka eegto ganacsigii haddaad ka eegto aqoontii haddaad ka eegto caafimaadka haddaad ka eegto dowladnimadii haddaad ka eegto difaacii dalka iyo ilaalintiisa haddaad ka eegto maanta waa ogtihiin inuu jiro wax la yidhahda cyber war ama dagaalka internetka dagaalka aan maaragtay ama call war baa jiri dagaalka qabooba waxaa bedelay dagaalka codeka ama maaragtay computer science cyber war dagaal internet dagaalku marka waa ka khatarsan yahay kii hore kuskii hore waa lagu soo hub iyo ciidan iyo dhaqaale badan iyo u baahnayd in lagu soo weeraro waana ud ka diyaar garoobi kartay laakiin maanta adoo magaaladaadaas ama dalkaaga ayaa si fudud hawlihiisii oo dhan la fariisin karaa bangiyadiisi baa la xanibi karaa oo mataqaanaa virus iyo hack inta lagu sameeyo ayaa bangiyada oo dhan lala wareegi karaa diyaaradihii iyo airborradii baa khalkhal la gelin karaa hawada laga xiri karaa maraakiibtii kusoo socotay baa la jaha wareerin karaa iyo bartooda maaragtay khadka laga lumin karaa go'doon baa lagu samayn karaa warshadahaaga korontada kuwa shidaalka ayaa la faragelin karaa sababtoo ah waxaan caalamku isku xiran yahay interconnected waayo interconnectedkaas waxaa ka dhalanaya technology adigu ay haysato inuu haysto meel kastoo caalamkan in laga haysto sidaa darteedna technologiyada hadda caalamka ka jirta hadday ahaan lahayd bangiga oo kale muxuu isticmaalaya software buu isticmaalaya database buu isticmaalaya database ku isticmaalaya software ku isticmaalaya iyo computer isticmaalaya waa kuwa caalamka oo dhan laga isticmaalo wuxuuna ku khasban yahay internet inuu xirto oo leeyahay suu u shaqeeyo sidaa awgeed si fudud baa markaa lagu soo geli karaa lagu weerari karaa xoolahooda loo dhici karaa marka waa inay jirtaa hab guud mid gaara oo shirkaddu ay iska ilaalinayso oo shirkadaha hadda bangiyadeenna iyo maasha allah way fiican yihiin technologiyada meelaha ugu horreeya aadka u isticmaala isla markaasna aan filayo inay xiriir weyn la leeyihiin shirkado kale oo waaweyn oo dhinacaas ilaalinta systemyadoodana ka qayb qaata oo ay lacag ku bixiyaan laakiin waxaan rabaa si guud Soomaaliya inay leedahay difaac guud oo dalka ah u fiirso internetku isagoo caalamka oo dhan haddana isku xiran ayuu haddana gaar yahay oo qolo walba ay gaarkeeda leedahay qolo walba ay leedahay hadda computerka aan hadda isticmaalayo meesha hadda aad joogto Soomaaliya meel kasta oo aad joogto oo internet ku xiran si fudud ayaa lagu ogaan karaa
waana la garanayaa inaad Soomaaliya ka soo bahalkiinayso sababtoo ah cidda ku siisa internetka hadday Golis tahay hadday Somtel tahay hadday Hormuud tahay hadday tahay mataqaana Telesom mid kale kulli waxay leeyihiin number iyo ID lagu garto iyo guud ahaan Soomaaliya oo dhan khadka Soomaaliya soo gala markaad telefoon ka dirto internetka ama email ka dirto ama aad website gasho waxaa la ogaanayaa website-ka isla markiiba og yahay inaad ka soo gashay Soomaaliya sababtana waxa weeye internetka wuxuu leeyahay khad iyo meel uu raaco IP buu leeyahay protocol buu leeyahay number uu leeyahay 01 binary numberkaas iyo wax la mid ah ayuu internetka ku shaqeeyaa marka identification iyo meesha joogtid waxa tahay oo dhan waa la socdaa sidaa ogeed waxa weeye caalamka asoo kala xiran asoo isu furan buu haddana kala calaamadsan yahay hadda mobilkaaga haddii aad u furto internetka u furto waxaa fudud inaad meel kasta oo maraysid meel kasta aad joogto lagula socdo oo lagu ogyahay sababtoo WhatsApp baa isticmaashay meesha ka soo dirtay waa loo jeedaa Google baa isticmaashay wax ka baartay waa la ogyahay inaad meesha ka soo baxday dariiqa aad taagan tahay baa la garanaa marka sidaa ogeed internetkii ma aha wax haddana si fudud ku difaaci karta haddaadan u diyaar garoobin oo aadan istiraatiijiyad guud lahayn shirkaddu hadday dadaasho laakiin dalkii si guud uusan jirin difaacana waxaa lagu difaaci karaa aqoonteeda in la yeesho oo ay jiraan dad u tababaran inay ilaaliyaan khadadka internetka ee dalka soo galaya ka baxaya iyo wixii halis oo ay ku soo socdo oo dhan inay ka ilaaliyaan ciidamada militariga inay leeyihiin qayb computerka iyo howlahaas iyo coding iyo internetka iyo securities waxa ka shaqeysa shirkaduhu si gaar inay leeyihiin booliisku inuu leeyahay dowladdu si guud inay leedahay siyaasad guud inay ka jirto waxaas oo dhan lama heli karo haddaan hoos laga bilaabin oo aan fahankeeda iyo garashadeeda la yeelan sababtoo ah banaankan taagnaanaya internetka waxaan isticmaalayaa intaas guud oo generiga ay qof walba isticmaalayso saasaana wax kaga meel gaaraya ma soconayso waxyaalaha internetku uu kaga duwan yahay ikhtiraaciyadii hore ama inventionkii hore iyo industrialkii hore waxa weeye laguma kala xoog badna waa qof walba iyo waddan walba si u dadaalo dadkiisa u baro cilmiga computerka iyo codingka iyo programmingka ayuu mataqaanaa internetka wax ku dhisi karaa oo wax ku samayn karaa oo ku horumarin karaa oo caalamka la tartami kara oo adeegyada isagu u baahan yahay ku qabsan kara dalka gudihiisa wixii kale caalamkana kula xiriiri karaa oo example Kenya oo kale hadda wadamada East Africa iyada ugu horumarsan marka la fiiriyo Rwanda iyo Kenya iyo ugu horumarsan Kenya maadaama waddan weyn tahay waxa weeye adeegyo badan oo muhiim ah oo baa si caadi dadku hadda internetka uga isticmaalaan ama appskooda iyo mobilooda uga isticmaalaan Rwanda oo waddan ka soo kabtay civil war aad buu ugu horeeyaa technology computerada dalka lagu sameeyaa mobilada lagu sameeyaa softwareda applicationada iyo systemskii baa lagu sameeyaa drones iyo waxa jira dalka gudihiisa ka shaqeeya oo dhiigga oo kale for example qofka xanuunsan cusbitaalka diyaarad drone ay geynaysa oo ciidana wadin daqiiqado gudahood delivery iyo alaabtii adduunka loo suuq geynayay shirkadda weyn oo Alibaba oo kale for example waxaan maqlay inay ka furatay hub weyn oo African hubka ugu weyn meesha ugu weyn oo Africa ay rabto inay noqoto dalka Rwanda tusaale ahaan sababtoo dowladdii baa xoojinaysa waxaan dowladdii baa iskuulka laga soo bilaabo primada ilaa iyo meesha ugu sareysa waxbaridii iyo aqoontii computer science iyo ICT information communication technology xoojinaysa wadda oo gacanta ku haysa wasiir gaar ah jira madaxweynihii baa hogaaminaya walka
kenya goormay ahayd 5 sano 6 sano ka hor baan u malaynaya markay dhahayeen waxaan gaarnay 15 milyan oo line oo internetka ah yani 15 milyan oo line waxa weeye 15 milyan oo xafiis ama guri oo internet ku galay gurigiiba intee jooga xafiiskiiba intee jooga marka imise qofku gaaraya almost waxa weeye dalka oo dhan ba inuu gaaray markaas internetka cid walba haysato oo ah kan lagu shaqaysto wataan in mobile markaa ka isticmaalayso iyo markaa computer ka isticmaalayso internet waa kala duwan mobile markaa ka isticmaalayso dee adeegyada iska diyaarsan baad adeegsanaysaa laakiin computerka waxbaad ku dhisaysaa waxbaad shaqaad ku qabanaysaa hawl baad ku fulinaysaa marka waxaa loo baahan yahay inaan soo gaabiyo in fahamka teknolojiyada ee ku salaysan applicationada iska diyaarsan oo dadku shirkaduhu leeyihiin WhatsApp iyo Facebook iyo hadda waarka wiil yar oo Mark Zuckerberg liyada odayga oo shirkadaas Facebook baa iska caalamka intiisa badan way isticmaalaan way adeegsadaan Google dad baa iska leh waa shirkad Mareykan waa platform ama waa technology cid walba isticmaali karto sax iyadoo iyaga isticmaalay marka dhinacii kalena adigu ganacsigaagii habkii shaqada ee dawladda waxbarashadaadii caafimaadkaaga kulli hab gaar oo ku saabsan dalkaaga iyo dadkaaga iyo dhaqaalahaaga ayay ku salaysan yihiin marka sistemada aad u baahan tahay waa inaad marka adigu dhisataa oo dadkii kugu shaqayn lahaa iyo dadkii kugu dhisi lahaa intaba aad soo saarta taasna waxaa ku soo saari kartaa oo keliya adiga oo fahma baahida iyo sida laga maarmaan u tahay in teknolojiyada laga soo bilaabo primada ardada caruurteena la baro oo iskuulaadkii la qalabayo oo dadkii wax la baro teknolojiyada la baro macallimiintii loo diyaariyo kadib bay markaa soo baxaysaa dad kugu filan oo dhinac walba oo teknolojiyada ka mid ah dhinacii ganacsigana dhisa application iyo systemo muhiima oo ummadda ku shaqaysato oo ku adeegto oo waxtaro oo shaqo abuur weyn sameeyo dhinacii difaacana ka qayb qaata dhinacii dawladda ka qayb qaata dhinacii waxbaridda iyo ka qayb qaata caalamka waxaa jira wax la yidhahdo digital halves iyo digital half-nots macnihii dad ku qanisan ama ku horumarsan xagga teknolojiyada maanta ee internetka iyo wixii la hadmaana iyo dad fakriga ah innagu kuwa fakriga ka ah baynu ku jirnaa mana aha inaan fakriga ahaano runtii oo waxaynu dhaqso aan bedeli karno haddii loo dadaalo oo la siiyo muhiimadda ay leedahay lana garto inay tahay wax muhiima oo aan laga maarmin marka waxaan rajaynayaa insha allah in dadka soomaalidu ay teknolojiyada internetka iyo applicationada iyo systemska iyo waxa ku dhisan aysan u arag keliya inuu yahay wax qolyo kale ay ku khatar ku yihiin oo kuwooda la adeegsado oo la isticmaalo balse ay noqdaan inay iyagu dhahaan caruurtooda iyo dadkooda ay baraan kadibna ay dhiirigeliyaan oo ay hore u mariyaan si ummadda oo dhan markaa uga faa'iidaysato oo dhinac kasta oo noloshana waataan niri teknolojiyadan way saamaysay xagga difaaca dalka xaggii dhaqaalaha xaggii waxbarashada xaggii caafimaadka xaggii siyaasadda xaggii bulshada iyo amniga dhinac kasta marka dhinac kasta hadday taabato waa in marka aqoonteedii la yeeshaa si markaa loogu diyaar garoobo horumarka looga baahan yahana looga gaaro insha allahu tacaala waa mahadsantihin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu